السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن أصحابي ميل كستو أد نغا داونيسان صباح وناكسن وبرنامج كيني كوباد وصباح نمو السنين تاريخنا أي تهي لبدا بشا مارسو سنة كالبكن إيا لحيا لباتن ساكي برنامج كوحان دين كوحيا حسب الله أو ويرر علوس كقادي أرورتي ساكي ديغانا كترسن قدها إسرائيل iyadoo Israa'iilna ay markiiba duqaymo kaga jawaabtay jawiga sidoo ahaa duqaymaha la isdhaafsaday meelihii la duqeeyay xaalkoodu waa sidee أن هنالك توعد بالمزيد من الضربات على اعتبار أن حزب الله قد أقدم على خطأ كبير باستهداف إسرائيل والانضمام وإسناد وحسو كله برنامج كان idinkugu soo gudbin doona afayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan oo isaguna sheegay in ay guulo waaweyn gaareen saacadihii la soo dhaafay markabkii diyaaradaha xambaarayna ay nagta ka saareen waxa la sheegayo Mareykan waa bentisule hadaba shirkiisa jaraa'idaan idin hayna iyo Mareykanka iyaguna waxay arrinka kaga jawaabeen الطائرات إبراهام لينكن تم استهدافها ب4 صواريخ كروز وبعد الهجوم تراجعت هذه الحاملة من مكان عملياتها نحو جنوب شرق المحيط الهندي وعسيو كلي برنامجka subaxnimo saaki aan idinkugu hayaa Iiraan oo weerar culus ku qaaday saldhig ku yaala jasiiradda Qubrus halkaasoo uu Ingiriisku ku lahaa saldhig military dabka laga kiciyay Ingiriiska maxaa lagu haystaa Iiraan maxay ku tuhmaysaa saldhigaas tafaasiil baan idinkaga hayaa iyo talaabooyin uu Ingiriisku isaguna qaadayo xaaladii bariga dhexe oo faraha ka sii baxaysa Israa'iil oo ku hanjabtay in ay Xisbullah meel uga soo hari doonto iyo Xisbullah oo ku hanjabay inay Yahuudda zuulin doonaan haddaba xaalka iyo meesha wax ku dambeeyaan iyo xiisada ka taagan Hormuz iyo waxa ka dhacay saacadihii la soo dhaafay maraakiibta quustay oo gantaalaha lala helay iyo droniska waxa soo dhanbaan barnaamijka saaka ku faahfaahinayna inta aan ku jirno asxaabay warar cusub haday soo kordhaan waan idin la socodsiin doonaa wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamida barnaamijyadeena aanu idin soo gudbin doono maanta oo isniin ah haddaba barnaamijkan waa kii koobaad oo aan saaka idin soo gudbinayo gabi ahaantii waxaynu kaga hadlaynaa dagaalkii ka socday bariga dhexe oo sii kululaaday Xisbullah oo dagaalka toos u soo gashay aroortii saakay dhowr gantaal ayay nagta kaga saareen waqooyiga Israa'iil kala carar kuwii hurdayay hal kala ordo rafaad iyo kala orda ka dhacay haddaba maxay sameeyeen Xisbullah isla markiiba waray soo saareen telefishinka Al Jazeera ayaa qoray wuxuu leeyahay Xisbullah waxay sheegeen in ay markaa weerar qaadeen Xisbullah waxay sheegtay inay bartilmaameysatay dhinaca waqooyi ee Israa'iil waxayna sheegeen qaybo kamida sawaariikhdooda iyo droniskoodu inay la dhaceen deegaanka la yiraahdo Mishmar al-Karmal oo ku yaala koonfurta magaalada Haifa haddaba waxay sheegeen weerarkan inuu bilaa u yahay argoosiga wadaadka shiicada ee Ayatollah Khamenei ee Iiraan hogaaminayay waxay dhanka kala sheegeen in weerarkan uu qayb ka yahay waxay ku tilmaameen difaaca Lubnaan iyo shacabkeeda iyo sidoo kale muqaawamadu inay ballan ku qaaday inay dagaalka sii wadi doonaan oo ay ka hortagi doonaan dhibaatooyinka iyo mushkiladaha ay geysanayaan sahnuuniyadda weerarkaas dhacay saak weerarka marka warar kala duwan la isku hayaa qaar waxay leeyihiin gantaaluhu waxay ahaayeen 6 intooda badan waa xaroodeen Israa'iil waxay leedahay 3 gantaale ahaayeen midaan qabanay 2 baxsatay warbaahinta kale maxay leeyihiin 2 qabanay midana gudbay haguu aaday Haifa ku dhacay waad meesha dekada Haifa la yiraahdo
ayuu u gudbay maxaa dhacay marka Israa'iil dadkii ku noolaa dhanka waqooyiga waxay tiri taxadar weyn muujiya is-ilaaliya wixii carari karaha carareen dhanka kale ee Lubnaan digniinay u direen waxay yiraahdeen ilaa 50 magaalo oo koonfurta Lubnaan ku yaala dadka nool ha ka qaxeen meeshaas annaga iyo Xisbullah naloo faataxaynaya haddaba wariyaashu waxay leeyihiin in weerarka Xisbullah uu kululeeyay Israa'iil waxa laga gartay markiiba isla aroortii diyaaradaha hore ka kicis waxay duqaysay koonfurta Lubnaan ilaa waxay duqaysay magaalada Beirut isla markiina waxay soo saareen waray leeyihiin saraakiil sare oo ka tirsan Xisbullah ayaan dilnay waxayna wacad ku mareen Israa'iiliyiintu inay Xisbullah baabi'in doonaan Xisbullahina waxay wacad ku martay dhiiga aayatullaahiga inaanu ciyaar noqon doonin oo kulligooda ay shahiidi doonaan sheekaas marka waa cajiib aanay tuso marka Israa'iil iyaguna waxay sameeyeen telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ciidanka Israa'iil waxay qaadeen mawjad weerar ah oo ay ku qaadeen Lubnaan kanaalka liiraa 12 Israa'iil wuxuu sheegay Israa'iiliyiinta ciidamadoodu inay weeraro dhinaca cirka ah oo rogaal celina oo jawaaba ay ku qaadeen Xisbullah deegaanada ay joogaan iyagoo ka jawaabay sawaariiqda Xisbullah ay ku soo weerartay dhanka waqooyi haddaba warbaahintu waxay sheegayaan in weeraradaasi lagu qaaday Beirut iyo koonfurta Lubnaan Israa'iilna waray soo saartay waxay ku sheegtay saraakiil sare inay ku dishay weerarkaas waaye wararkaas marka waa saakay dagaalkii waa fidayaa wali yaanoo dhiman ma garanaysaan oo alaabtoodii isku toosishanaya nimankii xuutiga waa dhibay markay Iiraan amartay mid walba dhaqaaqaysa dagaalku muddo dheer inuu qaataa la rabaa marka waxaagu inaa hormarsato lama rabo hadda Iiraan annaga isku filan taagan tahay Xisbullah la amray had Xisbullah yaa gashay waxyaabaha la yaab kale ee dhacay marka ee dadka falanqeeyaashu ay ka hadlayaan waxa kamid ah waxaa la yiri wadaadka Xisbullah ee maartay aayatullaahiga la dilay wuxuu mar walba ku celcelin jiray aniga waqtigeygu waa nin weyn baan noqday waxaan rabaa inaan shahiido qof kasta oo shahiida wuxuu dhihi jiray anigu qofkaas oo kale inaan noqdaan ahay waxyaabaha Iiraaniyiinta laga wareystay waxa kamid ah wadaadka waxa la yiri hal lagu qariyo god dhulka hoostiisa hal lagu geliyo waa diiday wuxuu yiri aniga xafiiskaygaasaan fadhinayaa meesha ku shaqaynaya gurigiisa iyo xafiiskiisa meesheeda ku shaqaynaya markay ugu badato maxay sameyn way dilayaan aniguna waxaan rabaa inaan shahaado qaato odaygii nimankii saasuu ku yiri waan ku qarino ama meeshayda iigu imaado ninkii shahaado raba aniga ha ii yimaado shararka intaan ku qabanaya waa kaas markii odaygii dhintay aayatullaahi way isdhaarsadeen kulligood nimankii madaxda ah oo dhan oo kacaanka islaamiga war odagan shahaadada soo ma qaadan ha annaga maxaa shahaadada noo diiday hal xabayuusan naga harin kulligeena shahaadada aan qaadana yidhaahdi aan shahiid noqon waxaa isku soo baxay shalay waa aragteen kumanaan dad ah magaalada Tahraan oo kulligood leh shahaadaan rabnaa wadaadkeennii sheekheennii hogaamiyaheennii shahaadada uu qaataa annaguna qaadanaynaa markaasaa meeshii waxa ka dhacay waxa socda waa yaabaysan qodobka kale ee barnaamijkan u gudbaynaa wuxuu yahay afhayeenkii ciidanka ilaalada kacaanka ayaa xalay shir jaraa'id ka soo muuqday telefishinka dowladda Iiraan ayuu ka soo baxay warkiisu waa cad yahay dhowr arrimood uu ka hadlay weerarada Mareykanka ay ku qaadeen maraakiibtiisa weerarada ay ku qaadeen saldhigyadiisa Kuwait iyo meelaha ay ku qaadeen iyo sida ay u karaaceen ninka marka wuxuu leeyahay markabkii weynaa Abraham Lincoln oo diyaaradaha xambaarayay oo baxrul Arab joogay 4 gantaal ku dhufanay alaabtii loogu talagalay gantaalaha ayaan la dhacnay isagoo dhinac kasta ka faniinsan ayuu wuxuu u cararow leeyahay badweynta Hindiyo aaday laakiin ugama hari doono
inta dhiman waa sii dhammaystireenaa uu leeyahy waxaa sidoo kale uu sheegay inay nagta ka saareen saldhigga Kuwait halkaas waa midda ay qirteen Mareykanka ay yiraahdeen 3 askari ah nooga dhimatay kuwa kalena waa nooga dhaawacmeen waxaana ogaanay yiraahdeen waxa meesha ku qarxay diyaarad drone inay ahayd oo saldhigga galay saldhiggii marka tacdiil uu sameeyay wax shaqo uu qaban karo malaaliin Bahrain nagta laga saaray imaaraadku afkay laba qaylinayaan qadar iska dhaaf sheekadu halkaasay marka maraysaa haddaba marka aan idin tuso warbixinta marka hore kadibna waxaan idin qashin doonaa afayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iran haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu qoray warbixin uu kaga hadlayo afayeenka ciidamada Iran Al Jazeera waxay leedahay Iran waxay sheegtay markabkii diyaaradaha xambaarayay inuu cararay inkastoo Washington ay arinka beeninayso laakiin warbixinta way sii socotay afayeenka waxa la yiri ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa wuxuu sheegay shir jaraa'id uu qabtay inay bartilmaameedsadeen markabka diyaaradaha xambaara ee Abraham Lincoln waxaan la helnay 4 gantaal oo sawaariikhda cruise-ka waxaana uu sheegay inuu cararay oo uu isaga tagay Bahrul Arab iyo badda Cas dhulkaas bayaan rasmi ah ayaa waxaa lagu sheegay in uu u cararay dhanka koonfur bari badweynta Hindiya ayuu ka dhacay waxaana weli socda ayuu yiri afayeenku beegsiga Mareykanka meel kasta uu joogo bariga dhexe meel uu nooga dhuuman kara ma law yiri waxaa la yiraahdaa howlgalka Iran al-wa'd as-sadiq afra la yiraahdaa ballantii runta ahayd ee afra la yiraahdaa al-wa'd as-sadiq kuwii hore la dhihi jiray hadda ki afraad waa le marka magacaasay baxsadeen waxaa la yiraahdaa dagaalka al-wa'd as-sadiq yiraahdaa howlgalka socda marka ninka marka wuxuu ka hadlay Kuwait arimahan sida ay nagta uga saareen wuxuuna u bishaareeyay shucuubta islaamka wuxuu yiri waa soo afjarayna kuwa ayatullahi oo dhintay macnaheedu kama dhigno dhahay Iran inay isdhiibtay ama isdhiibayso baan dhacayso yiri taraabna muxuu yiri xalay taraab wuxuu yiri dagaalkii waa fogaanaya 4 ilaa 5 toddobaad ayuu nala tagi doonaa 5 toddobaad uu nala tagi doonaa nin la wareysanayo wuxuu yiri war xuutiga wuxuu yiri ma qasaro jooga hubhaysta oo nagta wax ka saaraya Iran oo xuutiga iyo waxa ay dhashay Hezbollah ma 4 week lagu soo afjaraya wax hataa la qori kara baaharuy marka sheekadu halkaasay baashu ka lisaysaa oo ay hawadaasay maraysaa waayahay warbixin kale marka haddana soo baxday saaki oo la leeyahay ciidamada Iran waxay weerareen saldhig Qubrus ku yaal Qubrus walaalkee badda Mediterranean waa Turkiga korkiisa waay saldhig Ingiriisku halka ku leeyahay oo halka bay yimaadeen drone-ana loo diray u fiirso drone Iran ka kacday Qubrus tagto nagta ka saartay saldhigaas saldhigga marka waxa leeyahay diyaaradaha Mareykanka ee ka soo duulayay ayaa dhibaateynayay weerarayay Iran halkaas marka la iska arkay Ingiriiski waa hadleen wasaaradoodii gaashaandhigga iyaguna saakay waxay leeyihiin qiimayna ku sameeynayna saldhigga qasaaraha gaaray waxay soo kale Ingiriiska ku baaqayaan muwaadiniin fara badan inay ka joogto qaliijka oo ay ka shaqaystaan 76,000 oo qof ayaan soo qaadanaynaa yiraahdeen xaalku waa xumaaday yiraahdeen Ingiriisku waa isfahamnaa la yiri Iran iyo Ingiriis waa isfahmeen Ingiriis aan dagaal kuma jiro Faransiis aan dagaal kuma jiro leeyahay laakiin waxay yiraahdeen cidaan deynayna male anaga ma nagaadi kartaan ee dadka u been guureysaan mani isku safaatiina dheer anaga midna hayso kaana dhigin saaxiib ama min inaysan dagaalka ku jirin midna uu dagaalka ku jiro oo hadhow saldhigyada iyo diyaaradaha ma kala naqaanayeen nakana soo weerara waxa nagta ka wada saareenay marka aanada tusoo sheekadii ugu dambeysay arrinka laga qoray telefishinka Al Jazeera saakay wuxuu qoray wuxuu yiri qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay meel ku dhow saldhigga Britain ay ku leedahay jasiiradda Qubrus jariirada Ingiriiska ka soo baxda saakay waxay leedahay oo la yiraahdo Daily Mail ee waddanka Britain ka soo baxda
in qaraxyo waaweyn laga maqlay saldhigaasi oo ay leeyihiin ciidamada cirka boqortooyada Britain wuxuuna ku yaalaa Qubrus. dhanka kale Britain waxay sheegtay inay qorsheynayso inay soo daabusho muwaadiniinteeda sida ay qortay jariirada la yiraahdo Guardian iyaduna saakay oo waxay leedahay Britania waxa ay soo daldalaysaa oo ay soo qaadaysaa qorsheedu yahay dad ku dhow 76,000 oo muwaadiniinteeda ah kuwaasoo saameyn weyn ay ku yeesheen weerarada Iran iyo dagaalka ka socda bariga dhexe. wax isteeyna male baashi farahay ka baxday way sii socotaa xaalku farahu ka baxay nimankii Iiraaniyiinta ahaa Israa'iil iskaba dhaaf nagtasay ugu wadeen dhagaha ka garaaceen ilaa haddana jugtaa lagu hayaa marka meeshaasa marka xaalku maraya. haddaba qadar xayeysiisa kadib waxaan gelaynaa qaybta wararka kooban oo inta aan barnaamijka ku jirnay iska soo dabadhacayay ayaan idin dulmari doonaa haddii alla idmo. متعشى برشاد القرآن الكريم كا يعلم الشريعة هب عصري أونلاين أديكو جوجا كوريجا أما قبض هذا شقدا مركز دار التقوى وحكوا بري القرآن كهب عصري أونلاين بعدين كتكبر كرتو حكم ذا القرآن الكريم كا إجادة لغة العربية إيو علوم الشريعة استوان قلت وايد سعوطة فضلا هروكاد وهي فاهينا كالحديد من برض شاشة كان المغضى هموكادي دوكسيجا مركز دار التقوى. شركة قبل هومس waxay mashaariic ka wadaan Nairobi South Sea iyo Mombasa Niyali. shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas waxay ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex, 4 bedrooms duplex, 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom, 3 bedrooms, 2 bedrooms iyo 1 bedroom oo caadi ah. guryaha qaar waxa ay leeyihiin qolka shaqaalaha. qaabka shirkaddu guryaha u dhisayso waa qaab casri ah oo Turkish style ah. guri kastana waxa uu leeyahay masjid, madraso, swimming pool, gym, playground, meelaha lagu caweeyo, sitting areas, wiishashkii, motor automatic ah, ceel biyood, internet, parking, supermarket, pharmacy, cafeteria, security guard iyo CCTV camera iyo dhammaan facilities kale ee gurigu u baahan yahay. shirkaddu haddaba waxay ugu baaqaysaa macaamiisha inay samaysay beecdhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 maalmood iyo fursad qaali ah. wixii intaa dheer waxa aad la xiriirtaa maamulaha sare ee shirkadda Sheikh Liibaan Cali adigoo u sii maraya nambarka shaashada saaran. waa Qibla Homes. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo saakay waa Isniin qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan idin hayaa. haddaba qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa qaybta wararka degdega ah ee telefishinka Al Jazeera oo minute kasta wixii dhaca lagu soo update gareynayo. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa Al Jazeera ku bilaabaysaa waxaa la garaacay saakay garaacis dhinaca cirka waliba deegaanka la yiraahdo Jaraf oo ku yaala koonfurta Baghdad. haddaba Jaraf oo ku taala koonfurta Baghdad cidda garaacday lama yaqaano laakiin waxaa sheegay hay-adaha ammaanka Ciraaq. haddaba waxaa dhanka kale wararka cusub ka mid ah saakay oo hadda intaan ku jirnay barnaamijka soo kordhay siiriga digniinta ayaa laga maqlay dhinaca waqooyiga buuraleyda Golan oo Israa'iil xooga kaga haysato Suuriya halkaas oo ay ku yaalaan saldhigyo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin. dhanka kale wararka cusub ee soo kordhay waxaa ka mid ah mas'uuliyiin Mareykan ayaa laga soo xigtay Mareykanka iyo Israa'iil waxay sii wadayaan garaacista Iran muddo ku dhow isbuuc ayaanu sii garaaci doonaa ayay yiraahdeen oo xaaladdu waxaa la leeyahay farahay ka sii socotaa. wararka kale ee soo kordhay waxaa ka mid ah qaraxyo waaweyn in goordhow iyana laga maqlay caasimadda Iran ee Tehran. jariirada la yiraahdo Wall Street Journal ayaa iyaduna goordhow daabacday warbixin ay leedahay xogayaha amniga Iran ninka la yiraahdo Ali Larijani inuu sheegay in ay diyaar u yihiin haddii wada hadallo la bilaabayo oo ayaga iyo Washington inay wada hadalladaasu iyagu dhankooda ay diyaar u yihiin. laakiin wuxuu sheegay in Mareykanku uu ka bixiyo jawaab cad wixii dhacay. waxaana uu sheegay hadda waxaa socda howlgallo loogu aargudayo aayatullaahiga. haddaba warbixinada kale ee soo kordhay waxaa ka mid ah Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay beegsatay goobo ay ku sugnaayeen deegaanada la yiraahdo Nabdiyah al-Fufa oo ku yaala koonfurta Lubnaan Hezbollah mas'uuliyiin ka tirsan.
wararkaasuna waxay ahaayeen kuwii hadda ay qorayeen Al-Jazeera oo iska soo daba dhacayay qaybta wararka akhbaar caajila leeyahay wararka degdega ah haddaba xaalku halkaas u maraya asxaabay baashu waa kululaatay xaaladdu sidaasay mar walba u soo kululaanaysaa marka waa arki doonaa barnaamijyadaydu saddex waaye inta badan laakiin haddii baashu aad u sii kululaato waa soo kordhin doonaa bal adikuna fikradii aragti naga siiya barnaamijyada 4 ilaa 5 inaan gaarsiino sida ay idinla tahay inta xaaladan bal dhan ay u dhici doonto waa la ishayaa horta meesha jugta la isku hayaa haddaba wararkaas ayaynu saakay barnaamijkeennii subaxnimo asxaabay ku soo qaadanay haddaba inta aan mar kale kulmayno laagareeyo oo sheergareeya barnaamijka kuna xirnaada barnaamijyadayda xaqaa'iqa ku salaysan adikoo mar walba la soconaya macluumaad iyo warar xaqiiqa oo aanu ka soo xiganay hay-adaha warbaahinta caalamka haddaad nagu cusub tahay loobin subscribe si aad barnaamijyadan mar walba u hesho haddaad nagala socoto youtube facebook haddaad nagala socotana follow garey inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo